Salaam Somali Bank wuxuu maanta ku deeqay maalgelin qayb ka ah nidaamka Qardul Xasanka oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan ganacsatada yaryar ee ka howlgala gobolka Banaadir iyo nawaaxigiisa. Ganacsatada ka faa'iideysatay barnaamijkan waxay isugu jiraan ganacsatada qaybahooda kala duwan sida bagaashleyda, qudaarleyda, daawooyinka kuwa iibiya, dharka, spare parts, qaybaha waxbarashada iyo wixii la mid ah. Taakuleenta ay ku heleen nidaamka Qardul Xasanka ee bangiga ah ayaa ah mid ku saleysan kobcin maalgelineed oo aan faa'iido soo celineed bangiga ka rabin. Dadkii ka soo qayb galay daafurka munaasabadda maalgelinta ayaa sheegay inay aad ugu farxeen maalgelinta uu Salaam Somali Bank ugu deeqay, waxayna si gaar ah ugu mahadceliyeen maamulka bangiga. waa walaaladeen, waa wiilasheenii, waa u mahadcelinaynaa. waxaan leenahay waa idin duceynaynaa. waxaan leenahay ilaahay waxaan ka barinaa wax badan oo maxaa tiraahdeen ka dhamaan oo aad muslimka ugu taageertaan oo annaga wax noo gala oo idinka maxaa tiraahdeen wax idin gala ilaahay inuu idin fududeeyo. waa idin duceynaynaa. maxaa tiraahdeen annagana ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay sidiina loo siiyey noogu sharfo oo naga soo fududeeyo. marka waa idin duceynaynaa shirkadeena sharafta leh. mahadcelintu waa labo, mid xaqiiqi ah mid majaazi ah. tan xaqiiqiga Allah ayaa iska leh, tan majaazi aan hadda raggan noo sameeyay barnaamijkan Qardul Xasan aan ka faa'iideysanayno ayaan mahadcelinaynaa. rumaantii waxa waaye sida aan xadiiskaba tilmaamayo, qofku markuu macruuf ku sameeyo ama wanaag waxaa la rabaa inaad u abaal guddo. marka haddii aad heli karto, haddaasan heli karin waxaad u abaal guddo u beegtooma, waxaa laga rabaa inaad u duceyso. anigoo ah deeq Sheekh Maxamed aw Xuseen, markii koobaad oo aan meeshan wax ka qaatana aysan ahayn. aad baad u mahadsantihiin, waa mahadsantihiin, wabillahi tawfiiq. Madaxa baranjiyada Salaam Somali Bank Cabdulfataax Maxamed Odowa ayaa faahfaahiyey barnaamijka maalgelinta Qardul Xasanka, isaga oo sheegay in bangigu uu qorsheynayo inuu sii balaariyo barnaamijkan Qardul Xasanka haddii ay ahaan lahayd caasimadda iyo sidoo kale deegaanada u dhow. Salaam Somali Bank wuxuu had iyo jeer u taagan yahay kor u qaadista iyo ka shaqeynta dib u dhiska dhaqaalaha dalka. runtii maanta waxaan mar labaad u fadhinaa barnaamijkii Qardul Xasanka ahaa oo bangiga uu ka rabin wax faa'iido soo celin ah. waxaan aad ugu faraxsanahay sanadkan markii labaad oo ku jirnay bishii 2023 bangiga inuu bixinayo mar labaad ganacsatadana ay uga faa'iideystaan sidii loogu talagalay. runtii bangiga markii la furay ilaa iyo hadda barnaamijkan waxaa ku baxday lacag malaayiin dollar ah, waxaana ka faa'iideysatay kumanaan qof oo ganacsato Soomaaliyeed ah. waxaan idinkula dardaarmaynaa ganacsatadiina insha Allah tacaala inaad ku dadaashaan idinkana inaad ka dhabaysaan ganacsigiina si uu u noqdo ganacsi miro dhalo hadafkiina u gaartaan. Ganacsadii qaybta ka ahaa barnaamijkan Qardul Xasanka ayaa sheegay inay sameeyeen kobac dhaqaale oo fiican, iyaga oo xaqiijiyay hadafkoodii horumarineed iyo dhanka shaqo abuurka. sidoo kale waxay ku bogaadiyeen doorka uu bangigu ka qaatay kobcinta dhaqaalaha bulshada iyo horumarinta waddanka guud ahaan.